Fuaad Xamari oo ka mid ah siyaasiyiinta gobolka Togdheer oo waraysi gaaban siinayay qaar ka mid ah warfidyenada magaalada Bari ee xarunta gobolka Togdheer ayaa ka waramay xaaladda guud ee ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Somaliland taasoo maalinnimadii shalay ay goosteen qaar ka mid ah ciidamada qaranka Jamhuuriyadda Somaliland una goosteen xagga iyo maamul goboleedka Puntland kaasoo ku tilmaamay ayaan daro waxaana ka mid ah hadaladiisii haddii aan fikirkay ka dhiibto ciidanka Somaliland inta badan ka tirsana oo ah cududii Somaliland ee maanta goostay waa ayaan daro weyn maanta nagu timi waxaanu filinay maanta Somaliland oo mida oo meel looga wada jeedo waxaanu sugnay midhihii 27 sano ee Somaliland lagu naalooniyay maanta in midhaheeda la cuno waxaanu sugnay maanta Bari aarankeeda la cuniyay ubaxii la cuniyay aarankii baa haray in aaranka loo taliyo ayaanu filinay waanu ka xunaysaa runtii ciidanka goostay waxa weeye waxaan oran lahaa ciidanka goostay rag cadaalad waayay sida cawsha kaalya nimankaas waxa ay sheegeen u xidhaadeen cadaalad darro ayaa waxaan ku dhigay ayaanu tabanana waxa weeyaan dadka iyo bulshada iyo ciidankaba hoos ha loo eego hoos ha loogu dhaadhaco hal la ogaado waxa dadkan ka cabanayoon indhaweed waxa soo noqnoqonayay saxafiyiin cabanayso ciidan cabanayo waalid cabanayo waxaan ku dhigay haween iyo dumar iyo dhul iyo hanti intaba cabanayso oo ka hadlaysa waxa dalka ka jiro waxa weeyaan qofkii loo caban lahaa waa la garanayaa maanta waa cidda hoggaanka maanta dalka gacanta hayso waxa weeyaan madaxweynihii dalka mujaahidka u ahaa naftiisa iyo lafihiisa u huray waxaanu ka codsanaynaa haddaanu nahay bulshada gobolka Togdheer annagoo markii horeba cabasho dheeraada qabnay oo ah in gobolada Togdheer iyo Sool iyo Sanaag inaanay la saami ahayn gobolada galbeedka Somaliland waxaan ogsoonahay in gobolada Bari ee Somaliland maalin walba waxa lagu kordhiyaa ciidan baa lagu kordhiyaa inankii soo kacay ee reer Somaliland ee Bari joogo waxa loo carbiyaa inuu qori qaato inuu askari noqdo xagga gobolada galbeed loo carbiyo inuu jaamacad galo sanad walba waxa la xarig cusub waxa laga jaraa jaamacad galbeedka Somaliland ku taalo sanad walbana guuto culusba oo cusub baa laga yagleelo gobolada Bari ee Somaliland waxaan leenahay dalka khayraadkeeda ha loo sinaado mashaariicda Somaliland ee ku ururtay gobolada galbeed oo Somaliland waa dalku iyo dadka ha loo sinaado markaas inaanta leeyahay waxa weeye inanka qori bariga joogo qariga ha laga dejiyo jaamacadaha loo furo waxbarasho iyo caafimaad dhaba ha helo intaasaan leeyahay waxa weeyaan madaxweyne waxaan leeyahay golayaasha dalka ka jiray madaxweynaha waxaan leeyahay waxa kugu soo baxsaday culays aad u badan maadaama golayaasha dalka maanta aanay jirin golo guurtiyo golo wakiil maanta ay noqdeen golayaal fadhiida noqdeen golihii guurtida oo loo yaqaanay xalinta khilaafaadka dalka maadaama aanay khilaafaadka gobolada Bari ka socdo maadaama aanay dug u lahayn aanay war ka hayn ay fadhiid noqdeen in noqotay meel la kala dhaxlo sidii geeli loo kala dhaxli jiray looranayo hebel baa ka dhintay inankiisa ha loo doorto taasi Somaliland dhaqamayso madaxweynaha waxaan leeyahay kula qabto maadaama ay hawshaas kugu soo baxsatay waxaan leeyahay cid kale oo loo daba fadhiisanaya ma jirto madaxweyne galbeedka kaalayo Bari kaalayo hoos dadka u eeg maaha markii horeysay ciidan noocan oo kala ay ka goostaan ciidamada qaranka Jamhuuriyadda Somaliland waa Maxamed Yuusuf Cabdilaahi Maxamed Wardi Burco.